kulanti wacan oo wanaagsan aqayaarta awada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka telefishinka Hilaac qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay boqorka dalka Norway ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo ka hadlay guulo ay ka gaareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dagaal ay la galeen dagaalyahanada al-shabaab wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene oo sheegay in Puntland ay ogolaatay in dawladda Soomaaliya ay mashaariic ka fuliso deegaanada maamulka Puntland imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe ee maanta ay u fadhiisteen arday kor u dhaafayso 30,000 oo arday wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo baaqnabadeed u diray beela ku dagaalamayo deegaano hoostago gobolka Galgaduud gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo shir gudoomiyay kulanka guddiga joogtada ee maamulka Jubbaland qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Hilaac madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay boqorka dalka Norway madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qasriga madaxtooyada Oslo kulan kula qaatay boqorka Norway boqor Halan iyo dhaxal sugaha madaxweynaha iyo boqorka ayaa ka wada hadlay xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Norway iyagoo diiradda saaray iskaashiga labada dal ee dhinacyada horumarinta dhaqaalaha amniga isbeddelka cimilada adduunka iyo arrimaha bulshada madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay boqorka iyo shacabka Norway taageerada joogtada ah ee ay siiyaan Soomaaliya gaar ahaan xilligan oo ay ku jirto dib u dhiska dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale la wadaagay boqor Halan horumarka iyo isbedelada waaweyn ee ka socda Soomaaliya isagoo xusay dadaalada dawladda ee ku aadan nabadeynta kobcinta dhaqaalaha iyo hagaajinta adeegyada bulshada isagoo adkeeyay nabadda iyo horumarka gobolka ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo u hambalyeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland oo la wareegay deegaano ay ku sugnaayeen dagaalyahanada al-shabaab ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ayaa ugu hambalyeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada Jubbaland guusha ay ka gaareen dagaalka al-shabaab looga saarayo deegaanada Jubbaland ciidanka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka Buulaxaaji ee gobolka Jubbada Hoose oo 80 kiiloomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaan ku amaanayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee sida geesinimada leh dadaalka iyo daacadnimada ku jirto ee uga saareen dagaalyahanada al-shabaab deegaanadii ay gacanta ay ku hayeen ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa hoosta ka xariiqay in dawladdu ay gacanna kula dirirayso al-shabaab gacanna ay ku daryeelayso shacabkeeda isagoo intaasi ku daray in goobaha al-shabaab laga saaray la gaarsiin doono adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka iyo nabadgelyada si la mid ah deegaanadii kale ee laga saaray al-shabaab gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo gudoomiyay shirka guddiga joogtada xildhibaanada maamulka Jubbaland gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa shir gudoomiyay kulan magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka u ah dawlad goboleedka Jubbaland ku dhaxmaray guddiga joogtada ah ee golaha shacabka iyo guddiga joogtada ee golaha wakiilada dawlad goboleedka Jubbaland waxaana kulanka ka qayb galay gudoomiyaha golaha wakiilada ee dawlad goboleedka Jubbaland ugu horeyntii gudoomiyaha golaha shacabka ayaa guddiga joogtada ee Jubbaland warbixin ka siiyay waxyaabihii labadii sano ee la soo dhaafay u qabsoomay golaha shacabka waxa uuna sheegay in goluhu meel mariyay shuruuc muhiim u ahaa dawladnimada Soomaaliyeed gaar ahaan arrimaha deen cafinta qaadista cunaqabatayntii hubka ee dalka saarneed ku biirista bulshada bariga Afrika dhanka kalena gudoomiyaha golaha wakiilada ee dawlad goboleedka Jubbaland Sheekh Cabdi
maxamed cabdiraxmaan ayaa gudoomiyaha golaha shacabka iyo xubnaha guddiga joogtada warbixin ka siiyay howlaha golaha wakiilada Jubbaland iyo shuruucda ay meel mariyeen wuxuuna sheegay in ay muhiim u tahay wada shaqaynta labada dhinac iyo in ay arrimaha shuruucda iska kaashadaan. gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa ballan qaaday wada shaqaynta iyo taageerada golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale in kor loo qaado aqoonta iyo tayada howlwadeennada golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedyada. wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo baaq nabadeed u diray beelo ku dagaalamay deegaano hoostago gobolka Galgaduud. wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo baaq nabadeed u diray beelo walaala oo ku dagaalamayo qaybo kamida gobolka Galgaduud. meesha la yiraahdo waqooyi Galgaduud dagaalkii ka dhacay ee aadka loogu hoobtay ee ummadda Soomaaliyeed ee meesha wada degan muxuu ahaa ka dhacay wixii ka soo baxay oo dhibaato ahaa walaaci aan ka muujinaynay oo iskugu nimid muxuu ahaa haddaan nahay mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ka soo jeedo iskugu jira maxaa la yiraahdaa heer wasiiro heer xildhibaanada labada aqal iyo siyaasiyiinta kale muxuu ahaa meesha muxuu ahaa waqooyigaas Galgaduud ku abtirsanaysa dhamaantood shirkaas oo ujeedkiisu uu yahay marka koowaad inuu Ilaahay kala qaboojiyo ummadii meeshaas ku dagaashay iyo dhibka ka dhacay ee aan oo ahaa wax aan loo dul qaadan karin oo Soomaalinimada aan ku fiicnayn oo Islaamnimada ku fiicnayn oo ehelnimada ku fiicnayn oo darsnimada ku fiicnayn iyadoo lagu jiro bishii barakeysneed ee Dhul Hajj 10keedii bari oo Ilaahay quraankiisa uu ku sheegay wal fajri walaal 10 uu yiri bilih xurmaysnaa bil kamid ah ayadoo ay tahay dhiigga ummadda Soomaaliyeed oo dhan annagoo diidan inuu daato gaar ahaan bishan barakeysan haddana aad iyo aad xurmadeeda leh in la joojiyo arrintaas oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xamse Cabdi Barre uu ka soo bixiyay amar cad oo isugu yeeray maxaa la yiraahdaa wasaaradihii ay qusaysay iyo dadka ehelka ee meesha ka soo wada jeeday si lagu joojin lahaa heer federaal iyo heer dowlad goboleedka Galmudug oo hogaaminaya madaxweyne Qoorqoor iyo wasiiradiisii xaggana iyagana dadaal dheer ay ka wadeen oo uu magacaabay muxuu ahaa guddi heer dowlad goboleed ah oo arrintaas ayaga muxuu ahaa dhex galay saas si leeg ra'iisul wasaarahana uu arrintan maanta muxuu ahaa qalqaladeeda lahaa oo uu soo magacaabay muxuu ahaa u soo magacaabay maanta ra'iisul wasaare ku-xigeenka inuu shir gudoomiyo kulankan hadda aan ka soo baxnay kaasoon ku wada qaadanay maxaa la yiraahdaa kow in nabadda la qaato marka koowaad xabaddan la joojiyo guddigan meesha haatan marayo oo heer wasiir iyo heer maxaa la yiraahdaa xildhibaan isku jiro waxay la wada hadleen si wada jir ah labadii beelood walaalaha ahaa ee wada deganaa xiraale iyo ka soo kala jeeday Cabudwaaq odayaashii iyo waxgaradkii iyo maamuladii iyo dadkii muxuu ahaa ileed ku ahaa aad bay mataqaanaa arrintaas u soo dhaweeyeen labadii dhinacna waa soo dhaweeyeen dhinaca xiraalna waa soo dhaweeyeen barnaamijkaas nabadda ah dhinaca maxaa la yiraahdaa Cabudwaaq way soo dhaweeyeen si yaab leh oo walaalnimo leh oo kalsooni leh ayay u soo dhaweeyeen annagoo ku hadleen marka magaca xukuumadda magaca dawladda iyo magaca maxaa la yiraahdaa dadka meesha ka soo jeeda intaba waxaan mar labaad baaq u diraynaa dadka walaalaha ah ee meesha maxaa la yiraahdaa wada degan naga ballan qaaday maanta inaan maxaa la yiraahdaa wixii dhacay way dhaceen wax dambe aysan dhicin inay u hoggaansamaan maxaa la yiraahdaa barnaamijkan maanta ra'iisul wasaaraha uu muxuu ahaa soo jeeday gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo oo daafuray imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa si rasmi ah u daafuray qaadista imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiyada gobolka Banaadir oo ay maanta u fadhiisteen 35307 arday oo ka kala tirsan 656 iskuul oo ka mid ah dugsiyada Muqdisho. agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Nuur ayaa warbaahinta u sheegay in ardayda
maanta imtixaanka u fadhiisatay ee tiradoodu u kala qaybsanto 19766 wiil iyo 15541 gabdho oo qaar kamida ay yihiin dadka baahiyaha gaarka qabo kuwaas oo si guud ugu fadhiistay qaadista imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiyada gobolka Banaadir waana sanadkii shanaad ee maamulka gobolka Banaadir qaadayo imtixaankani gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa ardayda u fadhiisatay imtixaanka u rajeeyay natiijo wanaagsan oo wax ku ool ah isagoo sidoo kale sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu dhiirigelinayo fursadaha lagu hormarinayo waxbarashada caasimadda kormeerayaasha iyo dadka waardiyeynaya intaba si gooniya in loola socdo ayadana arrintaas maaragtay waa baraarujinaya si guud ardada saaka imtixaanka u fariisanaysa gobolka Banaadir dugsiga dhexe hoose waa tirada guud waxa weeye 35307 arday ayaa saaka imtixaan u fariisanaysa waxaa gabdha ah 15541 weeye gabdhaha maaragtay imtixaanka saaka ka qayb galaya wiilashuna waa 19766 arday guud ahaanna tiradoodu waa intaan hadda idiin soo sheegay 35307 arday ayaa imtixaanka saakay u fariisanaysa sanad dugsiyeedka fasalka 8aad waxaa imtixaanka lagu galayaa 93 xarumood ayuu ka dhacayaa imtixaankan hadda aan halkan ku furno 93 xarumood oo ku taala gobolka Banaadir ayuu imtixaankan saakay ka furmayaa dugsiyada ardadaas ay kala imaanayaan hadda cadadkooda soo sheegay oo 35307 arday ah 656 dugsi ayay ka socdaan ay ardadaas ka kala timid marka baahiyo gaar ah dad qabaa jira oo ayaguna maaragtay ardadaas saaka imtixaanka galayda kamid ah oo tiradoodu guud ay tahay 41 arday ay tahay waxaa dhagoolayaal ah 29 qof oo saaka imtixaanka u fariisanaysa indhoolayaalna 12 ayaa ah marka waxaan u rajaynayaa waa xaqiiqatan ayagoo baahiyo gooniya qaba ayay haddana dadaalkaas bixinayaan oo ay rabaan inay qaybtooda ka qaataan iyo mustaqbalkooda si u dhisi lahaayeen ku dadaalayaan wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene oo sheegay in maamulka Puntland ay ogolaadeen in deegaanadooda mashaariic ay ka fuliso dawladda Soomaaliya wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene oo ka warbixiyay mashaariicda horumarineed ee dalka ka socoto ayaa sheegay in Puntland ay ogolaatay mashaariic ay dawladda federaalka Soomaaliya ka fulinayso deegaanada maamulka Puntland iyo qiimeynta iyo korjoogteynta markasta mashaariicdii iyo horumarkii dalka laga dejinayay ujeedooyinkii loogu talagalay in la gaari in kale inaan markasta qiimeyntaas iyo joogteyntaas korjoogteyntaas markasta lagu hayo midda kale qorshaha horumarka qaranka 9aad ayaa gabagaba ah waxaa la soo bilaabay 2020kii wuxuu ku ekaay 2024 oo ah bisha sanadkan hadda ku jirno bisha December ayuu ku ogyahay sidoo kale intan hadda waxaan diyaarinaynaa qorshihii bedeli lahaa qorshaha isbedelka oo 5 sano soo socota 2025 ilaa 2029 qorshahaas waa qorshaha markii mideynaya markasta qorshayaasha dawladda xagga horumarka iyo mashaariicda lagu hagayo ayadoo waliba meel kasto dalka kamid ah sidii loo geyn lahaa adeegyadaas horumarka dalka in qayb ka ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in 2 sano ee xukuumaddan dan qaran ay joogto inay ku guuleysatay in mashaariic badan dalka meel kasta la gaarsiiyo oo caafimaad ha noqoto waxbarasho ha noqoto biyo ha noqoto maxaan ku dhahaa adeegyada kala duwan ee dadka ay u baahan yihiin taas oo suuro gelisay in horumar ahaan dalka nolosha dadkana dad wax badan ka bedeshay sidoo kale intana hoos u dhigtay heerkii saboolnimada dalka oo guud ahaan warkii telefishinka Hilaac waa naga inta